السلام عليكم صاحبي الكسور وهذا كورسنا AutoCAD Drafting Course Lecture 18 oo aan ku baranayno fillet iyo chamfer. Labadan tool aad ay muhiim u yihiin markii aad ashyaadaada ama waxa aad sawirta aad wax rabto inaad ka beddesho, especially weliba kuwa cornerskooda oo kale in la qurxiyo u baahan tahay. Meesha waxaa noo furan softwarekeena AutoCAD, marka iyaga waxay la xiriiraan labadan toolba waxay la xiriiraan halkan. Okay, meeshaan circle-ka ah kuu saaray hadda line inta ka imaaday line kale intuu ka imaaday perpendicular isku yihiin 90 degree ay ku xiran yihiin. Okay, oo macnaha radius-ka meeshaan ku jira 0 waa. Okay, haddaa 0 radius ah aad geliso curve kuu samayn doonaa yaa waaye option-ka kugu caawinaa fillet waa. Fillet wuxuu kugu caawinaa inay meeshaan curve noqoto. Okay, chamferna muxuu kugu caawinaa in meeshaan labadan line straight la isku xiro, yacni sidaan oo kale hal mar ila fiiri line iska mala awaalahan sameynaa. Okay, sidaas oo kale macnaha inuu kugu qurxiyo labadan line hadhow waa la tiri doonaa. Okay, marka waa isla arki doonaa. Hadda waxaa isla fahnay inay cornerska la xiriiraan labaduba, marka waxay ku jiraan qaybta modify ay ku jiraan oo halkan haddaa furto fillet waa kanaha, chamferna wuu ku xigaa. Labadu halkaas ku jiraan. Comment ahaanna fillet waxaa loo yaqaanaa F. Okay, chamferna waxaa loo yaqaanaa CHA. Okay, marka shaqadayna aan bilowno fillet-ka ku hormarayna. Okay, fillet-ka markaa ku hormarno aan soo doorano muxuuna dhihi doonaa fillet waxaa lagu sameynaa laba shay, yacni laba line oo kale line-kan iyo line-kan oo kale fillet lagu sameynaa. Marka muxuu ku leeyahay horta kow select first object, objective ugu horeeya dooro. waxaa leeyahay waa kanaha. Okay, waa kanaha marka ila wuxuu leeyahay select second object, kan shayga labaad iyo shay kan xigo waa kanaha. Mujida marka automatically kan labaad inta marka asaaraba saas isugu sii xiro. Okay, waa ujeedaa sooma. So marka y oo 90 degree uga dhiga fiiris kuwaan oo kale waa 90 degree. Okay, hadda kan soo laabo 90 degree waxay u noqonaysaa by default radius-keena 0 ah. Waa ku tusaa marka waxaa laga wado waxaas. Radius waa kanaha mujida. Radius-ka markaad doorato maxaa ku jiro qiimaha 0. hadda 0 la iska geli 0 da iska gelisa marka kan doorato still radius uu kaasii daboodaa warni ama radius u baahanta uu ku leeyahay. haddaad doorato 0 leewa mujida 0 marka hadduu radius-kaadi waxay ka dhigan tahay labada leen oo aad doorato angle oo waxaa la isku xiri doonaa 90 degree ah. warkaas inuu caadi ah u maleynaa. Okay, kaba soo qaad ba ani 90 degree ma rabo. waa meesha aan rabno inaan barano. hadda fillet-ka noo dooro sooma, fillet-ka soo dooro. wuxuu leeyahay waxaan leeyahay markaan radius-kan dooranaa radius-kayga maanta waxaa ka dhigaa 1 unit ama 1 millimeter. Okay, 1 millimeter radius aan gelinaa maanta 90 ma raba ani, waa qurxinaa curve aan rabaa. So marka wuxuu leeyahay hadda radius-ka waa gasta akhari inay ila socotiin rajinaa waa kanaha specify fillet radius 0 marka hore ahay hadda laakiin waxaan geliyay 1. Okay, soo dooro marka first object dooro kadibna second object. waxaa ujeedaa marka difference ma ujeedaa geeskan sida uu yahay geeskan sida uu yahay fiir kan maxaa ku jiro curve. Okay, fillet soo dooro haddana midda kale akhyaaray optionskan kala duwan waa isla arkaynaa, balse haddaa rabto inaad activate garayso waa ku dhufa kartaa. haddaa rabtana xarafka ugu horreeya markasta buluug ah, xarafka ugu horreeya aqoonsan yahay. tusaale ahaan radius oo kale ani doorana enter aan leeyahay, radius-ka geli u leeyahay. marka hore maxaa kuugu jira niyahow 1 millimeter igu jira 2 millimeter iga dhig kan waxaa rabaa inaan kan ka weynaado. Okay, first object dooro second object dooro. maxaa ujeedaa marka laba radius oo kala weyn, kan waa yar yahay kanna waa laba jibaarkiis waa. Okay, so marka noo soo laabo waxaan u malaynaa hadda inaysan ku dhibi doonin sida radius loo geliyo meel walba aad tagto waa sida waa. Okay, fillet waxyaalaha la isku xiro waxaa kamid ah ama aan soconno waxaan sameynaynaa fillet isoo dheh fillet marka isoo option-kana isla arkaynaa. Okay, polyline marka wuxuu ku anfacaa shay polyline ku samaysan. hadda rectangle oo kale markaa sameynaysid polyline uu ku samaysan yahay ma aha line option-kan line inta soo doorto kuma sawirin. Okay, waa isla arkaynaa waxaa ka hadlaya polyline aan dooranaa u fiirso. horta marka hore radius-keena aan iska hubino maxaa noogu jiro radius-keena hadda 0 waa. Okay, 1 ii geli maadaama aniga aan maxaa leeyahay control z aan taabtay oo aan ka laabtay wixii uu ka laabanaa. Okay, radius hadda ma iigu jiraa yes 0 marka hore ahay laakiin hadda aniga waxaan u sheegay inuu ii qaato 1 millimeter. Okay, polyline aan doorana polyline marka wuxuu kugu anfacaa shay polyline ka samaysan hal mar taaban hal mar kugu sameynaa u fiirso. maxaa ujeedaa intaa mid u sameyn lahayd hal mar lagu sameeyay. halkaan oo kale sidoo kale polyline waa kana meesha hadda ku okay polyline radius-ka 1 ka leeyahay iigu jiro. Okay, cafwan hal mar fillet radius-ka iigu jiro waa 1 enter ide sax waaye polyline kadib meeshaan imaw. maxaa ujeedaa sidoo kale u sameeyay. Okay, marka control z naga dheh maxaa fahantay marka polyline shay aan ahayn ma ka aqbalayo. waa ku tusaa marka fiiri marka warkaas waa ku tusaa waxa uu yahay. waxaan sameynaa rectangle hadda meeshaan intaan iska qiyaasaynaa
rectangle iska qiyaaseynaa hadda rectangle-ka maxaa ku sameeyey line oo waxaa waaye wuu kala furan yahay ama mid oo marka hore polyline ahay oo explode lagu kala jebiyey ma ku shaqayn doono u fiirso marka filadaan leeyahay radiuska r ii taabo rta marka 1 geli markaan waxaa sameysaa marka polyline dooro hay maxaa ujeedaa selective polyline uu ku leeyahay 2D polyline dooro marka polyline baa meesha ku haynaa waxba ma ku taraya marka fiiri markaa yeelayo calaamad cross ka soo marka waxaan polyline ahayn hala aadin meeshaasna waa kaaga digaa okay maxaa kaloo noo dhiman fillet noo soo dheh radiuskeena 1 noo yahay markaan waxaa baranayna hadda undo waa taqaanaa waa ka laabasho polyline waa isla fahanay hal mar wada sameynay shay polyline ahana ku sameynay radiuska meesha laga gashto waay trimka amaano trimka soo dooro trimka marka fiiri by default maxaa dooran computerka applicationka muxuu ku imaadaa trim inay dooran tahay maxaa laga wadaa ma taqaanaa u fiirso trim markay dooran tahay fiirsiya first object yaa doortay second object yaa doortay maxaa la sameeyey marka waxa aan rabo inaan ku tuso oo ila fahanto halkan waay halkan maxaa ku jiray line ku jiray sax okay trimka markuu dooran yahay macnaha laga wado waxay tahay qaybtaan oo trim ku sameynaa trim maxaa waaye soo qaaday trim waxaa waaye wax in la jaro waa soo marka filetka marmarka qaar waxbuu jaraa ogow taas inuu wax jara hadda aan ku tuso u fiirso filet markaa dhahdo waxaa sameysaa radiuska 0 iska geli maanta inuu wax jiro waxaa kugu tusaa hadda meesha maxaa iska jaraya laba line is jaraya sax waxaa ogaataa muxuu igaraa marka first object iyo second object meeshaana afar object yaa taalo laba shay waa si guud balse intersectionka markaa fiiri marka is jaraan halkan line-kan laba u qaybsamaa intersectionka markaa fiiri line-kan laba u qaybsamaa ogaaw مثلا waxaa rabaa aniga u fiirsaya waxaa rabaa line-kan iyo line-kan inaa jaraa rabaa maxaa sameynaa marka labadan aan dooranaa kanaan ku xiraa maxaa ujeedaa labadaas waa baxeen hay mar raba waxaa rabaa kan labadaas inay baxaan hay maxaa ujeedaa marka soo marka sidaasna ogaaw sidaasna way jirtaa oo u fiirso hadda geesahan oo kala kala dheeraaday fiiri geesahan oo kala dheeraaday fillet loo soo dooro radiuskaada 90 degree waaye 0 waaye oo 90 degree hadda uu sameyn doonaa geesahan ka dheeraad ma u baahnid inaad inta trim soo qaadato kan iyo kan aad jarto maxaa u baahan tahay first object dooro second object dooro mujda sida laaga tiri soo marka sometimes as trim u shaqeeyaa balse waxa aan rabo inaan ku tuso hadda oo trimka ku keenno waa saas waa marmarka qaar wuxuu jiraa hadda by default trim aad dooran okay control z control z naga dheh hadda guudku waa elephant meesha trim uu ku sameynayo okay hadda soo 90 degree ma fillet ii soo dooro enter dheh trim marka dhahdo hadda maxaa dooran optionka trim ah oo macnaheedu maxay ka dhigan tahay fillet hadaa qiimo gasho whatever qiimahu raba ha ahaado waxaa la sameynaa trim lagu sameyn doonaa no trim ii dooro marka no trim ii doorata radiuskana maxaa iigu jiro 1 iigu jiro sax waa soo marka u fiirsiya marka no trim ii dooraya ila soco first object waa doortay second object waa doortay maxaa ujeedaa marka cornerkan hee lama tirin why not waxa waaye no trim ii dooran optionkaas ii dooran soo marka elephant amalena yacni waxay ka dhigan tahay intaan radiuska gelina maane markii hore original soo ahaa ha iga tirin camal waa okay soo marka isla cornerkan hadana u fiirsi waa soo laabanayna filada leenahay intera leenahay trim meesha dooranayna marka waxa ka dhiganaa trim jar waay originka iga jar fiirsi marka radius gelinayna wana ku jiro okay waa qabanayna waa markaan lagu ma reebin ina elephantay waan jeclaa waayahay radiuska fillet maxaa noogu dhiman hal shay noogu dhiman waxaa noogu dhiman multiple marka muxuu ka wadaa horta radius noo geli waa ku jira wanaaba ku jira iska enter la sii dheh multiple dooro ama m inta doorato enter leedahay multiple markaad doorato fiiri marka multiple waxaa waaye ashyaa kala duwanaa fillet hal mar ku sameynaya oo maxaa sameynaya fiiri waa imaanays first object waa kana command inaa soo gelis uma baahnid waa wada taaba hay waa kan soo gelis hay kan u imaaw عفوا يا انا تابتي سبيس كان تابتو ملتيبل ايده ولي وو كو سوعنا اوكي هي كان او اماو سو سو جي هي كان او اماو سو سو جي يعني ملتيبل waa fahmi kartaa hada waxaan ku sharxa ma ina dhowr object ina adiga la meesha ka maamulato waa fillet sidoo kale waxa isugu xili kartaa labadan fiiri fillada leedahay maxaa rabtaa 90 degree isku xirtaa mase angle أنا مثلا 90 degree أسكول حلا ربع radius كزيرو كديك مرك كان صوت دور first object كدي بحا صوت دورته second object سو مرك ماشي في لذا وبحا chamfer كأنت أنقلنا مرك chamfer كبحا سمينه كانك صوت دورنا
chamferka markaad doorto marka asagana sidoo kale option uu leeyahay undo waa taqaanaa waa ka laabasho waa had undo waxaa samaysaa ka laabanay macnaa chamfer oo kale gelinay undo haddaad dhahdo waa ka laabanay polyline maxaa waa hal mar oo chamferka ku sameynaa marka isaga muxuu la shaqeeyaa kii hore filletka muxuu la shaqeynaa radius kana muxuu la shaqeeyaa distance oo laba distance uu kaaga baahan yahay chamfer isoo dooro marka kadib waxaad dooranay distance d halkaan aad click ku sii kartaa ama d aad dooranay enter leeda muxuu ku leeyahay marka specify fast chamfer distance marka laba distance uu ka rabaa soo maaha distance ugu horeeya waa gelinaa iskana fiiri waxa fast iyo second aad ka kala dhigaysa iska fiiri fast chamfer distance ani 1 ka dhigaa 1 millimeter muxuu yiri specify second chamfer distance 2 ka dhigaa okay waa soo baxa marka soo baxo muxuu dhigi doonaa sidii oo kale iga rabaa fast object iyo fast line ama fast object iyo second object ama second line oo iga rabaa soo marka fast line aniga kana u doorto ka u doorana akhyaar iska fiiriya ama waxa sameynaa meel la arki karo kana aniga waxaan u dooranaa fast line kan taagan waa doortay ay muxuu yiri second line dooro waa kan hale chamferka marka waa sidaan waa chamferka lagu sheegayo meeshaan hadda 90 degree ee halkaana chamfer ku jiro waxa marka waxa inaan ku fahansiiyo distance hadda maxaan gelinay fast distance waxaan gelinay inuu 1 millimeter ahay second distance maxaan gelinay inuu 2 millimeter ahay that's why balkan isku laakeen u fiirsan marka mid isla eegan sameynaa chamfer alle mugta waxaan sameynaa distance oo square sameynaa 1 camal haddana 1 aan gelinaa second distance ay labada leen waa kana leen waa kana kan soo u sameeyaa iyo kan soo u sameeyaa isleeyin waa maxaa kala duway distance midna waxay tahay 1 midna waxay tahay 2 inay runta inay been tahay marka waxaan ku kala ogaanaynaa si cabirina marka u fiirso amaanana halkaan marka imaano waxa sameeynaa chamfer option kale kugu sii dulbara marka aan uga faa'iideysana option kale waxa waay trim or not trim waxa ku soo barata fillet marka ma kugu cusbo trim waxa waay hadda muxuu sameeyay u fiirso waxay trimka ayadoo dooran tahay waxaan sameynaynaa distance gelinaynaa oo iska 1 ah okay trimka marka maxaa waa trimku uu dooran yahay already uu ku jira waa doorane wuxuu tiraa marka originki Soomaa okay no trimka marka maxaa sameynaa fiirso chamferka waa uu ku jira mugta distance waxaan ka dhigaa 1 fast distance waxaan ka dhigaa 1 okay second distance maxaan ka dhigaa 2 and ay trimka marka imaana trimka marka booskiis maanta waxaa dooranaa no trim okay ama ena taabane no trim marka doorto fast line aniga u aqoonsada aqaare ila socdo kan vertical ka u aqoonsada waaya ay second kana u aqoonsada waa ujeeda soo marka maxaa ujeeda no trim ma dooran bimacna originka lama tiri doono okay cornerki aan soo ka soo bedelay oo chamferka ka soo dhigay lama bedeli doono lama tiri doono macna soo maadaama aan la tirin waxaan ku dhahay distance ugu horeeyay waxaan ka dhigay Soomaa wana ka dhigay distance ku xigana second wuxuu ahay waa cabirina marka ani marka maxaan ka rabaa fast line distance originka u jiro inuu 1 ahaado waa cabira halkaan ilaa halkaan 1 ka rabaa waa u jeedaa waaya ay second distance maxaan geliyay 2 millimeter ay isagana muxuu la tacaamulay second line oo la macaamulay second line keegana waa kana ha kaas jiifo waa soo cabira isagana maxaa u jeedaa marka ina elephant rajayna distance okay chamfer leeyahay marka u fiirsiyaa mar kale chamfer leeyahay chamfer marka iraado distance markaan square ka dhigaa 1 1 agli mjidido waa kan still maxaa dooran no trim option okay soo marka waa cabira hadana asagana so fast line iyo second line marka isku mid waayo 1 iyo 1 waa okay ina elephant ayaan rajaynaa okay chamfer noogu soo laabo maxaa marka kala baranayna chamfer okay markaan no trim hadda noo dooran mugtahay trimka u daa marka trimka marka muxuu sameyn doonaa distance hadda distance iska dooro 1 ku jira mugtahay 1 ka geli trimka marka muxuu sameyn doonaa option kaas uu tira mujida wax xari doona mala sidii kan uu reebayay originka ma uu reebay marka waxaan u maleynayaa si fiican in sharaxadeeda aan idin fahansiiyay midaas ku soo laabo marka kale maxaa noo dhiman polyline baranay distance waa baranay trim waa baranay okay polyline baranayna polyline kii hore camal leeyahay polyline marka maxaa waa shay polyline ka samaysan sida rectangle kan oo kale ay hal mar gelinayna chamfer fiiri chamfer maxaa ku jira hadda oo 1 ah ay waa soo bixina kana imaanayna waa gelinayna kan laakiin mida ku samaysan dibka intaas waa okay kaasna wuu kala go'an yahay kan oo kala lagu sameyn karaa okay polyline notor waa kaas mujida sidaas oo kale kugu sameynaa yani hal mar sidii waxa waa filletka oo kale okay chamfer u soo laabo marka maxaa noo dhiman hadana
oo aan baran karnaa okay undo waa taqaanaa undo waxa waa fiiriya chamfer aa gelisa mogtahay sameyne chamfer yacni waxaa gelisay tusaale ahaan one oo kale ii geli secondna waxaa ka dhigay one enter undo oo kale aa leedahay macnaha muxuu dhahay comment has been completely undone okay marka maxaa waaye waa laga laabtay macnaha wixii hadda aa gelisay meesha kuma jiraan okay license hadda aa gelisay meesha kuma jiraan so marka undo waxaa gelidaa ka laabanaya kaas hadda dadka waba yaqaaninba polyline maxaa waaye shay polyline ah rectangle ah ayaa hal mar wada chamferka siinaya ama hal mar filetka wada siinaya licensaha meesha laga gashto waa hore u baranaba angle aa baranayna marka angle aan barana marka okay chamfer ideh chamfer markaa doorano angle aa baranaynaa angle-ka marka u fiirsayaa wuxuu ku yiri specify chamfer length on the first line kan awal muxuu ahaa jiray first line iyo second line soo maha maanta first line distancegiisaa gelinaya hadda zero waa one aa gelinaa u fiirsayaa first line bis waa khayr second line ma jiro second line maxaa soo bedela maanta angle angle-ka waxaa iska dhehaynaa angle oo 40 degree camal aad iska dheh geli enter ma dhahday soo bax marka muxuu ku dhahay first line dooro muhiim waa meesha first line ka dhigay kan verticalka ha ka dhigay okay waa ka dhigay soo ma second line dooro waa kan marka muxuu sameeyaa maanta laba distance ma jiro maanta waxaa jiro hal distance iyo waxaa jiro iyo waxaa jiro angle soo ma soo marka u fiirsa marka waxa yara sameeynaa no trim option ka dooranayna si oo wixina iskula fahanno macna chamfer trim no trim iga dhig kadib waxaan gelinaynaa angle ahaan u gelinaynaa first line waa 1 angle-kana waxaan ka dhiganaa 40 degree enter first line kaasa u doortay second line kana u doortay u yaala mugtaa angle-ka marka 40 degree waa angle-ka marka maxaa waay waa angle-ka chamferka length-giisa iyo length first line-ka angle-ka ay sameynayaan ayaa waxaa la yiraahdaa angle-keena kaas uu ku cabiran yahay maxaa ujeedaa 40 degree waa angle-ka chamfer line-ka iyo length first line-ka isla sameynayaan okay sidoo kale maxaan geliyay distance oo 1 ah okay distance 1 kana asagana waa kan waa okay waa halkan first line iyo origin-kiis okay saas waa asagana hay maxaa noogu dhima marka chamfer aan fiirino waxaa noogu xigo trim no trim-kana trim-kiisa noogu soo celi angle waa fahnay method-ka wax dhib badan maaha method-ka hadda labada shay aa barato waa markii koowaad maxaan u geli jirnay distance ahaan markii kalena waxaan u geli jirnay angle ahaan hadda ma sharxayna marka distance waa soo gelinay oo first distance iyo second distance aa usoo baranay angle-kana waaba kan hadda aa sameynaba okay soo marka ka laaba kaas hadda anaga ma sameynayno chamfer waa soo laabanay method multiple maxaa waay multiple marka waxaa dhowr shay inaad chamfer hal mar geliso horta distance ma cad yahay distance wanaha ku jira soo maha bello multiple dooro multiple markaa doorto marka mid kastoo imaado ku sameyn kartaa fiiri hay kan u imaaw yacni commandiga iska shaqeynaya macnaha inaa commandiga maantana soo doorato ma u baahnaba already uu kuu gashan yahay waa ujeedaa lecture-keena marka halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa saaxiibayaal lecture-kan waa lecture-kii ugu dambeeyey ee koorsadeena AutoCAD drafting course waxaa 100% aaminsanahay ama aan ku kalsoonahay inay wax badan software-ka lama koobi karo laakiin in badan oo cilmi ah inaa meeshaas ka qaadatay waxaana kugu dhiirigelinaa haddii aad la kulantay janaalkan ama aad aragtay subscribe saar sidoo kale like saar dad badan oo asxaabtaada oo sidaadoo kale ugu baahana inaad gaarsiiso ayaan rajeynaa waa mahadsantihiin dhammaantiin saaxiibayaal khayr badan ayaan idiin rajeynayaa